Barasabka gobolka Sanaag Maxamed Axmed Caalin Tiimbaro ayaa maanta kulub ka hadlayay kulan hay'adaha samafalka ee gobolka Sanaag ka howlgala ay isugu yimaadeen xarunta wasaaradda qorsheynta ee magaalada Ceerigaabo. Wuxuu halkaas hay'adaha uga soo jeediyay hadal dhinacyo badan isugu jiray. Waxaana barasabka Sanaag ugu horeyn isagoo ka hadlayay waxqabadka hay'adahan uu hadalkiisa ku bilaabay sidan. Anigu tuulooyinka waan marmaraa waan iska socod badna. Keer baa wax siisay meel waan ku arkaa. NRC baa meel ku arkaa. Kana laysan meelaan ku arkaa. in aliyaalay intiina kale wali magacooda meelan tuway ugu tagi ma jirto waxa leeyahay waxa buurta ku teedsanoo tami waxa ilaahay waxaanu aragnay qoladii boolyada waa qoladii ma garanaysa talaab ayaa bari tagtay wax dawladda boolyadaas aan bari aragnay bidhe imika birigi dhawada dabayl dhacaan baa xeebta hoose la galay laakiin buurahan dhaxo dhan wali waa sidii hay'adu markay timaado ay wasaaradda balaadka u timaado waxay aduun haysiyo waxay mashaariic haysiyo waxay fulinayso markay keento wixii degmada Ceerigaabo leeday degmada Ceerigaabo meeyarka loola ay u gudbinaysaa wasaaraddu wixii gobolka guud ahaan ana lay keenaya baahideena inaga waxa jira lacagayo ugu badan ee imika barigaad anigu aan joogay Hargeysa laba mashruuc bay ku soo bixi jireen ka hortaga HIV-ga iyo deegaanka labada mashruuc oo noogu balaarna labadaas ahaa labada halkan kama shaqeeyaan wasaaradda deegaanku ugu dhibaatada badan gobolkan dhibaatadu ka haysato weeyaan meel walba dhuxul baa laga shidaya ida liyaali cid hay'ado deegaanka kala hawl gasho hawshaana ma arag barnaamijyadiina waxa ku darsanaysaa wax qabadka deegaanka waa lagu daraya isagoo ka hadlaya dacwado la xiriira dhinaca cashuuraha oo hay'adahan laga soo gudbiyayna wuxuu yiri waxa hay'adihiina lagaga soo cawdo anaga xafiiskayga ku badan waxaan la yiraahdaa revenue-ga shaqaalaha leedii shaqaalaha cashuur baa looga baahan yahay dawladna cashuur baa ku shaqeysaa cashuur laan wax jiraya ma jiro waxaan idin leeyahay mar dambe yaanay dhagahayga soo gaarin hay'adihii waxay ka meelmeeliyaan cashuurka xafiiska cashuuraha barigo dacwadaas uu keenay barasabka gobolka Sanaag maruu ka hadlayay mashruuca quudinta dadka ee hay'adahan bixiyaan oo uu sheegay inaanu wax faa'iido u lahayn bulshadeennana wuxuu yiri quudintan sanadka soo socda hadii la ilaa dhamaanteed waynu iska joojinaynaa qoodin yar oo waxa la waxay u taraysaa cid ma jirto waxay ugu bedeleynaa warba dadkan aakhirtu afartan ari inta loo iibiyo dib loogu yimigoodii hadii la kari waayo warba mashaariic beero yar aan abuurno waxaan u sameeyno si laakiin bax yar xasantan halkan ugu xidhnoon aan masruufno muddo bay soconaysaa hadhow abaari waa laga baxaa loodhano waa laga jari dabad qofkaas meel uu ku garan maayo gabagabadiina barasabka Sanaag wuxuu halkaas digniino uga soo jeediyay qaar ka mid ah hay'adaha samafalka nagaad hay'adaha ku qoran nabadgelyada wax ka qabtaan waa ka koow nagaad Oxfam iyo qodollada akademiyada saddexdooda midna lama arko nagaad waxay ka qabatay nabadgelyada gobolka Sanaag waa la idin ka rabaa haddii waxba ka qabanina sayana lama sabidine sabidka naga daayay ugu dambeyntiina isagoo guud ahaan hay'adaha samafalka la dardaarmayay barasabka gobolka Sanaag wuxuu halkaas ka yiri hay'adu wax qabadkiina hala cudurkiina laga xaafadkiina hala soo wad ma cashuurta dawladda iska bixiya waxa haysaana hal idin ogaado Abdullahi Xuseen Darwish Somali Cable TV Ceerigaabo.